hordhac akhrisku waa isha aqoonta quudiyaha maanka iyo maskaxda waxaa laga dhaxlaa in macluumaad badan la helo waxay nagu caawisaa inaan orino wax cusub ummadaha horumaray waxay dhaqan u leeyihiin in ay wax akhriyaan ummadaha dunida hogaamiya waa kuwa wax akhriya akhrisku waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu muhiimsan ee laga rabo insaanka inuu barto si uu dunida ula jaanqaado marar badan ayaad maqlaysaa akhristaha maanta waa hogaamiyaha berri anaga oo sidaas u og haddana wax akhriskeenna aad buu u yaryahay marka loo eego bulshooyinka kale haddii aad doonayso inaad ka weynaato dadaada wax akhri buugaagta waxaad ka helaysaa tijaabooyin iyo farsamooyin horay loo soo maray dad qarniyo fog ka hor noolaa ayaad la sheekaysanaysaa waxaa sare u kacaya hab fikirkaaga garaadkaaguna wuu kobcayaa balse waxay u baahan tahay sabir dulqaad dhabar adeeg adkaysi tacab iyo dadaal aan yaraan diinteenna islaamka waxay nagu dhiirigelisay inaan wax akhriyo sababtoo ah suuraddii ugu horaysay ee lagu soo dejiyey nebigeenna maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd iqra oo micnaheedu yahay akhri sidoo kale qur-aanka waxa uu noo bidhaamiyey ahmiyadda aqoonta ay bulshada u leedahay muslimiintii hore waxay cilmiga baran jireen carruurnimada ilaa qabriga ay ka galaan waxay ku dadaaleen akhriska waxayna horumariyeen dunida wakhtigii ay joogeen haddaba dhiganahan waxaad ku baran doontaa micnaha guud ee akhriska qaabka wax loo akhriyo sida looga faa'iidaysan karo buugaagta noocyada buugaagta hadafka wax loo akhriyo soomaalida iyo akhriska ummadaha horumaray iyo akhriska buugan iyo kuwa kale oo dhegaysiya waxaad ka helaysaa halkani ee nagu xidhnow